معدن باكبوت أنقحي سمالي منتظر دقاقو لليلنا بيرو قسمني يا وبيدا منتظر دقاقو لليلنا بيرو قسمني يا وبيدا زعمها يسخم صدا كرباها يساسار يسوى الدرجار قيلكين انقادني قباني مهدوى ذا الشراء عشاني قوم بالقرب قلي عشاني قوم بالقرب قلي زعمها يسخم صدا كرباها يساسي يسوى ذا الدرجار قيلكين انقادني قباني مهدوى ذا الشراء dalkan sidiisaba waxaa xorriyadiisa keenay dhalinyaro iyo ciidan Soomaaliyeed waxaa u dagaalamay oo keenay astaantiisa ciidan Soomaaliyeed waxaa xoreeyay oo sharaftiisa iyo karaamadiisa sugay dad Soomaaliyeed oo idinka oo kala ah maanta Soomaaliya waxay haysataa fursad weyn fursaddu ma aha madaxweynaha ma aha ra'iisul wasaaraha ma aha baarlamaanka ma aha dawlad goboleedyada madaxdooda fursadda Soomaaliya ay haysato waa ciidamada Soomaaliyeed sida keliya oo aan dhibaatada uga bixi karno waxa ay tahay inaan idin wakiilano idinka inaad soo celisaan karaamada iyo sharafta ummadda Soomaaliyeed maadaama aan annagu idinka idin wakiilanay inaad soo celisaan karaamadii iyo sharafta ummadda Soomaaliyeed waxaad matalaysaan dhammaan ummadda Soomaaliyeed sida aad ula dagaalantaan cadowga oo aad uga adkaataan sida aad u ixtiraamtaan dadka Soomaaliyeed oo u shaqaynaysaan sida aad u sharaftaan dharka aad gashan tihiin sida aad u ixtiraamtaan calanka Soomaaliyeed oo idinku ka tihiin ilaaliyayaal ayaa waxay noqonaysaa astaanta qaranka iyo ummadda Soomaaliyeed waxaad ogaataan calankan aad ku wadataan garabkiinna bidix waxa uu ka turjumayo waxaad xasuusataan mid ka mid ah halyeeyadii ciidanka Soomaaliyeed Soomaad arkina meeshan weyn oo la yiraahdo Xalane ee ku taala Xamar yaa loogu magac daray waxaa loogu magac daray nin idinkoo kala ahaa askari Soomaaliyeed ahaa Xalane la oran jiray 1964 ayaa ciidan Soomaaliyeed oo jooga tuulo yar oo la yiraahdo Togwajaale waxay la kulmeen dhibaatooyin badan waxaa ka mid ahaa in ciidankaasi laga soo riixday meeshii ay joogeen markii laga soo saarayay meeshii ayuu Xalane Allah u naxariistay wuxuu arkay calankii Soomaaliyeed oo xerada ka babanaya wuxuu ka xishooday oo sharaftiisu siin weysay inuu ka soo tago calanka waa calanka hadda idinka garabkiina bidix ku suran wuxuu ku noqday meeshii markaasuu soo dejistay calankii iyadoo daqiiqad walba ay xabadi ku dhacayso inta xabadda ay ku socotay xataa uu dhulka ku dhacayay calankaasi ciiddu ma aanay taaban wuxuu ahaa geesi Soomaaliyeed
laakiin wuxuu ka turjumayay Soomaalinimada iyo qarannimada wuxuu ka turjumayay muhiimadda uu calanku inoo leeyahay idinkuna waxaad tihiin waardiyaashii calanka Soomaaliyeed waxaad tihiin cid ilaalinaysa waxaad tihiin cid soo celinaysa sharafta calanka Soomaaliyeed sidaas daraadeed in gabdhihiina iyo wiilashiina iyo hooyooyinkiina iyo aabayaashiina lagu dilo dariiqyada in jidadkeena la xirxiro in adduunyada aan ka harno in Soomaaliya loo haysto inay tahay dalka dunida ugu liita sida kaliya oo uga bixi karna waxay tahay idinku inaad matashaan ummadda Soomaaliya inaad ogaataan mas'uuliyadda ay leedahay dharka aad gashantihiin Soomaaliya sida kaliya ay ku horumari karto waxay tahay inaan ka adkaana cadowga annagoo midaysan xukuumaddu waxay idiin ballan qaadaysaa in bil walba marka ay dhammaato aad heshaan mushaarkiina xukuumaddu waxay jirtaa 2 bilood waxaan aaminsanahay Janaayo ilaa bisha Abriil in qof walba oo ka mid ah ciidanka la siiyay mushaarkooda soo sidaas ma waxaan ka codsanayaa taliyayaasha inay si degdeg ah ugu soo gudbiyaan sababtoo ah dawladda iyo xukuumadda waxaa ka go'an in qof walba idinka mid ah oo gashan dharkaas in la siiyo mushaarkiisa bil walba markay dhammaato qofkii uu ka maqan yahay mushaar laga soo bilaabo bisha Janaayo aniga u ballan qaadaya in la siin doono sidaas daraadeed waxaan idinka rabaa inaad niyad ku shaqaysaan inaad ogaataan annagu inaan ka soo baxayno waajibkiina sida idinkuba aad u ballan qaadeen inaad ka soo baxdaan waajibkiina intaas kadib waxaan rabaa inaad ogaatiin si aad u heshiin in la sugo duruufihiinna oo idil waa inaan nabadgelyada dalka wax ka qabannaa haddii aan isbaarooyinka qaadno shabaabka aan ka adkaanno dalkoo dhan aan isku furno waxaa suurtogelaysa in canshuurtu ay kor u kacdo canshuurta hadday kor u kacdo waxaa suurtogelaysa inaan jidad ka dhisanno isbitaallada dhisanno iskuullada dhisanno mushaarkiinna aan bil walba si joogtaa u bixinno idiinna kordhinno marka xuquuqdiinna loo sii kordhiyo loo sii badiyo waxaa hortaagan keliya dalka inaad xoraysaan waa muhiim dalka inaad xoraysaan si kulligeen sharafteenna ay u soo noqoto ugu dambayntii waxaan rabaa inaad ii sheego sida idinku adigu taagan tihiin inaad xallisaan dhibaatooyinka cadowgu dalka ku hayo ayaan isugu aruurinay ciidan sidaan oo kale ah magaalada Muqdisho gudaheeda ciidamadaasi way shaqo bilaabeen iyagoo ah ciidamo isku dhafa oo ah hay'adaha kala duwan ee amniga ciidankaasi waxay bilaabeen inay sugaan amniga magaalada Muqdisho kuwaasi maadaama ay bilaabeen inay sugaan amniga magaalada Muqdisho waa inaad idinkuna ka shaqaysaan inaan qarax dambe halkan ka iman in magaalada Muqdisho dhib aanu iman in laga bilaabo halkan ay nabad tahay waa idiin soo noqnoqon doonaa waa idiin imaan doonaa laakiin waxaan rabnaa inaad waddooyinka furtaan inaan isbaaro dambe la aqbalin may maqlaysaan waa in waddooyinka la furaa waa inaadan aqbalinina isbaaro kuwa isbaarada magaciinna ku dhiganaya waxay dilayaan sharafta iyo karaamadiinna waxay dilayaan sharafta iyo karaamada